يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فإن من دلائل قدرة الله وعظائم آياته الدالة على قوته واستحقاقه للعبودية أن خلق السماوات ورفعها بغير عمد وجعل لها أبوابا لا تفتح إلا بإذنه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يفتح لعباده أبواب السماء لتنزل عليهم الرحمات ولتسعد لهم الأعمال الصالحة وليستجيب الله دعاءهم ويقضي حاجاتهم في أوقات معلومة معينة واردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أحوال مذكورة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى آياتkiisa iyo calaamadihiisa tusinaya awoodiisa iyo Rabbi subxaanaه watacaala xooggiisa waxaa ka mida abuurka ilaahay uu abuuray samooyinka toddobada ee kala sareeya. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله waxa uu yidhi abuurka samooyinka iyo dhulalka isweydaarashada habeenka iyo maalinta calaamad wax lagu qaato oo waano ah dadka caqliga leh ayaa ku jirta. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ilaahay wuxuu ihi isagoo aayadda addoomihiisa xusuusinaya inay wax ku qaataanna u sheegaya miyaanay eegin samada ka sarraysa, sidaanu u dhisnay miyaanay u fiirsan, sidaanu u qurxinay miyaanay arkahayn inaanay dildilaac iyo dalool toona lahayn ay tahay samada ilaahay subxaana wa tacaala uu simay. ilaahay subxaana wa tacaala samooyinkaas wuxuu ka dhigay kuwa leh albaabo dhaba oo albaabo la taaban kara ah. ilaahay subxaana wa tacaala albaabadaasi waxa uu ka yeelay kuwa aan la furin ilaa biidnin minhu, ilaahay oo ogolaado mooyaane. taa waxaa daliilna tusiya inoogu filan yaa cibaad allah xadiidka dheere ka waramaya alisraa walmicraaj. wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay iyadoo malaku jibriil uu la socdo inuu dalbay in loo furo samadan adduunyada usoo xigta. istaftaxa samaa addunya faqiila lahu man faqaala jibriil faqiila lahu hal macaka axad qaala muxamadu qaaluu aursila ilayh qaala nacam. waxay yidhaahdeen yaa garaacaya albaabka samada? waxau ihi waa jibriil. yaa kula socda? maxamed baa ila socda. miyaa loo fasaxay maxamed inuu samooyinka soo galo? ilaahay uu fasaxay. malaa'igtii kalaa weydiinaysa. wuxuu ku jawaabay jibriil haa. arrintaasi iyadoo ah calaamad ay tahay qofka muslimka inuu wax ku qaato samooyinkan uu ka fikiro iyo siday u tusinayaan awoodda ilaahay iyo kelinimadiisa.
waxaa taa raacdo ilaahay raxmadiisa ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala albaabada samada aanu ka dhigin kuwa mar walba xidhan. ilaahay subxaana wa tacaala waktiyo gaaru addoomihiisa wanaagsan u furaa, waktiyada iyo axwaasha gaarka ah oo ilaahay raxmadiisu ay uga soo degto, camalkooda wanaagsanina uu u galo, ducadooduna samada ay gaadho oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka aqbalo. hunaaka awqaat wa axwaal wa acmaal biha tuftaxu abwaabu الsamaaء yanbagii calى kuli cabdi muslimi an yagtanimaha wayantahizaha wayastafiida minha. waxaa jira waktiyo iyo xaalado gaara oo albaabada samada ilaahay subxaana wa tacaala u furo oo ay la gudboon tahay qof kasta oo muslimi inuu ka faa'iidaysto, uu ka qaniimaysto, oo uu ku beego waktiyada towbadda ilaahay uu toobad keenayo iyo camal saalixoo samada u galo ilaahay subxaana wa tacaala u gaadha, iyo duco dhab oo qalbigiisa ka soo godo shuruudda dhammaystiratay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka aqbalo. waxaa ka mida waktiga uu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ku sheegay xadiidka uu wariyey alimaamu alxaakim fi mustadrakih. qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam إida naada almunaadi futixat abwaabu الsamaaء. marka muwaadinku waa eedaamo eedaanka uu ku dhufto allahu akbar marka ay bilaabanto albaabada samada ayaa la furaa. waxa uu nabigeenu intaa ku daray waktigaasi inuu yahay waktiga u dhaxeeya aadaanka iyo iqaamada, wakti addoomaha ducada laga aqbalo. waa wakti mudan qofka muslimkaa inaanu mooganaan, inuu ilaahay si gaara u xusuusto, inuu camalka saalixa waktigaa ku dadaalo, ducada inuu la eegto, baahiyihiisana ilaahay subxaana wa tacaala inuu u bandhigo. waxaa ka mida waktiyada la furo albaabada samada fii jawfi leyl, habeenka dhexdiisa. qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam fima rawaahu tirmidi ida اntasafa alleyl futixat abwaabu الsamaaء fayunaadii munaadin hal min daacin fayustajaaba lah hal min saa'ili fayucطىa hal min mustakfirin fayugfara lah. habeenku marka uu kala badhmo albaabada samadaa la furaa buuhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam. mid dhawaaqa ayaa dhawaaqo malaa'igta ilaahay ka mid a. xadiidkani waa ka duwan yahay xadiidkii kale nusuulka iyo soo degista ilaahay ka warramayay. kaasi waa gaar. kaa dhawaaqa ee ilaahay uu amray inuu dhawaaqo wuxuu yidhaahdaa war albaabadii samadaa furan ayaa ilaahay baryaaya oo ducada laga ajiibaa. war yaa ilaahay wax weydiisanayo ilaahay uu siiyaa. war yaa ilaahay u toobadkeenayo dembi dhaaf weydiisanaya oo ilaahay subxaana wa tacaala u dembi dhaafa. addoomaha qaarkood waktigaa qaaliga waxaa laga yaaba macsiyo inay ku jiraan ama inay hurdo ku jiraan mubaaxba ah oo fursadda qaaligii sidaasi ay ku dhaafto. waa wakti la gudboon qofka muslimkaahi inuu fursadda qaaligaa ka faa'iidaysto, ilaahay uu baryu rabbi u toobad keeno, ilaahayna uu weydiisto dembiyada inuu ka dhaafo. mana aha wakti lagu dayaco hurdo qura ama lagu dayaco ciyaar iyo soo jeed lagu soo jeedo waxaan macno lahayn, amaba se lagu lumiyo macsiyo iyo wax ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya. waxaa ka mida waktiyada la furo albaabada samada waktiga u dhaxeeya labada salaadood, waxaana loo furayaa addoomaha ilaahay ee faral intay tukadeen faral kalena ku sugaaya halkii ay ku tukadeen, iyagoo dhegaysanaya cashar diiniya, wacdi ama muxaadaro, qur-aan iyagoo akrinaya, ilaahay iyagoo xusaya, ugu yaraan iyadoo niyadoodu ay tahay inay faral ku sugaan oo ay noqdaan muraabitiin, kuwa salaada gaadhkeeda haya. anas bnu malik radia allahu canhu wuxuu yihi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam salaad maqribna tukiyey, dadkii labay u qeybsameen, kuwa masaajidka ku hadhay iyo kuwa masaajidka ka baxay. nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo aada u degdegsan oo ilaa jilibkiisa fayday baa noo yimi, faqaala calayhi الsalaatu wasalaam abshiruu abshiruu faina rabbakum
قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول هؤلاء عبادي قضوا فريضة وينتظرون أخرى. rabbigiin wuxuu furay albaab ka mida albaabada samada, waxaana rabbi subxaanaه wa tacaala wanaagiina iyo qiimihiina u sheegaya malaa'igta qiimaha badan. waxa uu leeyahay kuwaasi masaajidka fadhiya ee faral tukaday ee faral kala sugaya waa addoomahaygii. faral bay tukadeen, halkiibay kii kalena ku sugayaan. waa fursad aad iyo aada qaali ah, gaar ahaan maqrib iyo cishaa inta udhaxaysa. dad fara badan waktigaas wuxuu kaga lumaa macno la-aan. masaajidkana waxay ka baxaan iyadoo laga yaabo xataa inay sii fadhiyaane iyagoon akrin adkaartii iyo ducooyinkii salaada maqrib ka dambeeyey, iyagoon tukan sunnihii salaada maqrib ka dambeeyey. qofka muslimka ay naftiisa waa inuu la jihaado oo uu ku sabir siiyo in masaajidka uu fadhiyo, cibaadana cibaado uu ku sugo, wakti kasta oo firaaqo uu helana oo wakti faral aan ahayna cibaadooyinkaa sunnaha inuu ku dadaalo. waxaa ka mida xaaladaha gaarka ah ee samada la furo markuu addoonku yidhaahdo subxaana allah walxamdu lilah, markuu addoonku yidhahdo allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wa subxaana allahi bukratan waasiila. cabdullaahi ibnu cumar wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaanu la joognay. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay nin yidhi allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wa subxaana allahi bukratan waasiila. saxaabadii buu rasuulku la hadlo wuxuu ku yidhi ayukum lqaa'ilu kada wa kada, kineebaa yidhi hadalka sidaa iyo sidaas, dikrigaa keeba akhriyey. faqaala rajulu min alqowm ana ya rasuula allah. nin saxaabada ka mida baa wuxuu yihi anaa rasuulka ilaahay oo dikrigaa akhriyey allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wa subxaana allahi bukratan waasiila. faqaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam cajibtu minha futixat laha abwaabu الsamaa. kelimaadka aad tidhi aada iyo aad baan ula dhacay oon uga yaabay qiimaha ilahay agtiisa ay ku leeyihiin. waxaa loo furay kelimaadka albaabadii samada. ilaahay subxaanaه wa tacaala macnaheedu waxa weeye si dhaksaabuu addoonka uga aqbalaya camalkiisaasi ilaahay u gaadhaya, mana noqonayo mid marduud oo addoonka lagu celiyo haddaanu addoonku samayn wax sababa camalka in laga aqbali waayo. xadiidkana imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey. waxaa ka mida waktiyada qaaliga ee la fura albaabada samada marka ay qoraxdu samada bartankeeda xaggay u dhacdo uga iilato ee salaada duhurna weli aan loo eedaamin qabla salaati الظuhr. kaana nabiyu calayhi الsalaaةu wasalaam yuصلي إida zaalat الshamsu qabla ظuhri 4 wayaquul hadihi saacaة tuftaxu fiiha abwaabu الsamاء fauxibu an yascada liya fiiha camalu صaalix. rasuulkeeni moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam marka waktigii duhurku uu soo galo waxa uu tukan jiray 4 ragcadood. waxaanu rasuulku odhan jiray saacaddani waa saacad qaaliya, albaabada samada ayaa la furaa. waxaan jecelahay waktiga albaabada samadu ay furan yihiin inaan ka faa'iidaysto oo aan la imaado camal saalix oo samada i gala, ilaahay i gaadho, ilaahay subxaana wa tacaala uu iga aqbalo. waa fursado aada iyo aada qaali u ah. rasuulkeeni moxamed baa inoo sheegay, wuxuu inoogu sheegay inaynu ka faa'iidaysano fursadda qaaliga ah ee ilaahay addoomihiisa wanaagsan uu siiyey. waktiyada uu inoo sheegay nabigeeni moxamed calayhi الsalaatu wasalaam albaabada samada in la furo waa waktiyo aada iyo aada qaali u ah oo ay tahay qofka muslimka ee kurbadii ay haysato iyo dhibaato, ka xanuunsanaya, ka faqri iyo baahi ka cabanaya, ka khilaaf iyo dhibaato cid kale dhex taalla ay dhibayso, culays ay ku hayso, ka awlaadiisii sidii uu ka rabay wanaagsanayd ka waayey. qof kasta oo muslim oo dhibaato ay haysato iyo culays iyo kurbad waa fursad ay tahay inuu ka faa'iidaysto, ducadiisana uu la egto. allahna subxaana wa tacaala waxaa looga rajaynayaa ducadaas inuu ka aqbalo. waktiyada samada la furo waxaa ka mida waktiga uu ducaysto
qofka dulman. wuxuu uhi nabigeeni moxamed calayhi الsalaatu wasalaam sidoo wariyay tirmidi can abi hurayra wa dacwaة اlmadluum turfacu fowqa alghamaam wayuftaxu laha alabwaab wayaqulu rabu subxaanah laansuranaki walow bacda xiin. qofka dulman ilaahay markuu baryo subxaana wa tacaala allah weydiista ilaahay dulmigaa inuu ka dulqaado, ka daalimkee dulmiye ilaahay inuu uga hiiliyo, baryadiisa kor baa loo qaadaayo daruurahay dul martaa, daruuraha laga sarraysiiyaa la dul mariya, baryadiisaas albaabada samadaa loo furaa. ilaahayna subxaana wa tacaala waa ka jawaabaa, wuxuu yidhaahdaa qofkaa dulmano waan kuu hiilin doonaa oo cidda ku dulmiday waan kaaga hiilin doonaa, wakti dabadiiba arrintaasi ha dhacdee. waxaa xadiidkan uu tilmaamayaa dadka muslimiinta ah inay dulmiga iska ilaaliyaan noocyadiisa kala duwan, waayo qofkii aad dulmiday hadduu ku habaaro ilaahay habaarkiisa waa aqbalaya. waa ka yidhi nabigeeni moxamed markuu la dardaarmayay saxaabigii mucaadi ibnu jabal ee yaman uu diray, wاtaqi dacwaة اlmadluum fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab. qofka la dulmiye iska ilaali habaarkiisa, allah subxaana wa tacaala khaaliqi awoodda leh iyo habaarkiisa wax xijaaba udhexeeyaa ma jiro. macanaa ilaahay subxaana wa tacaala habaarka uu ku habaaro waa aqbalayaa, waanu kugu dhacayaa habaarkaas. ilaahay subxaana wa tacaala waa dhacdaa qofka daalimkaa inuu seeto dheereeyo. ina allaha la yumli liلظaalim xataa ida akhadahu lam yuflitu. ilaahay subxaana wa tacaala qofka daalimka waa dhacdaa inuu seeto dheereeyo, waayo iyada lafteeda ciqaaba oo dembi ayuunbaa usii kordhaayo, sabab u noqda cadhada ilaahay inay u biirto, cadaabka ilaahayna inuu ku weynaado. maalinta ilaahay subxaana wa tacaala uu qabtose ilaahay kama muruxsan karo oo rabbi subxaana wa tacaala kama baxsan karo, waayo waa addoon daciifa. marka horeba ilaahay ma qaban kari waayin, ilaahay subxaana wa tacaala waa u seeto dheereeyey. waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofka la dulmiyey inay u bannaan tahay inuu habaaro qofkii dulmiyey, iyadoo ay garab taallo dhiirigelin shareecadu ay dhiirigelisay cafis inuu sameeyo, qofkaa cafiyo oo habaarka uu ka daayo aanu kana argoosan. taa waxa uu ku helaayo yowma alqiyaama marka ilaahay la hortago ayaa ka weyn waxa uu ku helayo habaarka uu habaaro qofka dulmiyey. waxaa ka mida xaaladaha la fura albaabada samada, ida qaala alcabdu laa ilaha ila allah khaalisa min qalbi. addoonku markuu ku dhawaaqo kalimatu tawxiid ee uu yidhaahdo laa ilaha ila allah, iyadoo qalbigiisa ay ka dhab tahay oo nifaaq aanay ka ahayn iyo istusnimo, dembiyada waaweynna uu ka dheeraaday, albaabada samadaa loo furaya. laa ilaha ila allah ku qowlkeeda ayaa cibaado ah, ayaa ducaa baryo ilaahay uu baryey. cibaadada iyo baryadaana si dhaqsaaba addoonka looga aqbalaya. wuxuu uhi nabigeeni moxamed calayhi الsalaatu wasalaam, ma min cabdi yaquul laa ilaha ila allah mkhlisa min qalbihi ilaa futixat laha abwaabu الsamaa majtanaba alkabaa'ir. addoon kastoo yidhaahda laa ilaha ila allah, addoonkaasoo laa ilaha ila allah rumaysan oo qalbigiisa caqiide iyo yaqiin ahaan ay ugu jirto, albaabada samadaa loo furaa laa ilaha ila allahda uu ku dhawaaqay. shardi labaadna arrintaasi waa leedahay, waxaa albaabada samada loo furayaa laa ilaha ila allahda addoonku uu ku dhawaaqay, dembiyada waaweyn addoonku inuu markuu ka dheeraado. haddii dembiyada waaweyn uu ka dheeraan waayo, isagoo laa ilaha ila allah ku digriyaayo ku celcelinaya, ayaa waxaa dhacaysa dembiyada waaweyni albaabada samada inay ka soo oodaan oo ay ka xidhaan. waxaa ka mida waktiyada la fura albaabada samada ee ay tahay qofka muslimka ay si gaara inuu uga faa'iidaysto yowm alkhamiis waljumuca, yowm alkhamiis wاlithnain, maalinka khamiista iyo maalinka isniinta. labadaa maalmood albaabada samadaa la furaa buuri nabigu calayh الsalaatu wasalaam. tuftaxu abwaabu الsamaa yowma alkhamiisi wاlithnain
فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا maalinka isniinta iyo maalinka khamiista waxaa la furaa albaabada samada ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu u dembi dhaafaa addoon kastoo ahlu tawxiid ah oo shirki aan samaynin ilaa cabdun baynahu wa bayna akhiihi shaxna fayaquulu rab dacuu haadayni xataa yastalixa waxaa ka mid a addoomaha ilaahay ahlu tawxiidkaa kuwa aan isniinta iyo khamiista aan loo dembi dhaafin sababtuna waxa weeye iyaga iyo walaalahooda muslimiinta ayaa waxa udhaxaysa cadaawad nacaybshiiyo qalbi xumaan taasoon diin iyo ilaahay daraaddii aan ahayn ee waxa ay ka kacday ay tahay dheef adduunyo labadaa ilaahay wuxuu yidhaha labadaa u kaadiya wixii ay galan yaan laga masixina sidiisii ha ugu qornaado ilaa goormaa loo kaadinaya xataa yastalixaa ilaa ay heshiinayaan xadiidkan wuxuu tilmaamaya labada maalmood fadligooda acmaasha saalixee wanaagsan ee addoomuhu ay sameeyaan labadaa maalmood in si gaara loo kor yeelo oo ilaahay subxaana wa tacaala ay gaadho oo albaabada samada loo furo in dembi dhaaf ilaahay uu sameeyo labadaa maalmood oo ilaahay u dembi dhaafo addoomaha ilaahay ee muwaxidiinta ilaahay keliyeeya ee shirkiga ka fogaaday waxaa ka qada un dembi dhaafka ilaahay addoomaha muslimiinta ah muuminiinta ah haddana nacaybshiyo iyo cadho iyo iskhilaaf ku kala maqan iyadoo arrintaasi ah mid khilaaf adduunyo ka kacday oo aan ahayn mid ilaahay daraaddiiya oo iimaanka ka mida iyo cibaadaadka ilaahay subxana wa tacaala loogu dhowaado waa laba maalmood oo ay tahay addoonka muslimkaa si gaara inuu xusuusnaado oo albaabada samadu inay furan yihiin uu ogaado oo camal saalixa oo dheeraada uu sameeyo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam asbaabta uu soomi jiray bay taasi ka mid ahay isniinta iyo khamiista oo ducada uu farabadiyo baryada ilaahay subxana wa tacaala uu baryayo intaa horteedna qalbigiisa uu ka sifeeyo shirkiga noocyadiisa kala duwan ka weyn ee diinta lagaga baxo iyo ka yar ee ka mida kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn dadka muslimiinta ay wax u dhexeeyaan ee khilaaf adduunye ka kacay u dhexeeyo siyaasad khilaaf qabyaalad ka kacay mid baloodh la ysku haysto ka kacay mid muran iyo ismaandhaaf kaloo dhex maray un ka kacay khilaafkaana inuu iska soo gebagabeeyo oo muslimiintu ay noqdaan kuwa isu laab xaadhan ilahay baynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu ina garansiiyo fursadaha qaaliga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa u yeelay kuwa ka faa'iidaysta ilahay inuu inaga dhigo camalka wanaagsana ay sameeyaanna laga aqbalo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان